war qoraal oo ay barta Twitter-ka ay ku leedahay jabhadda ONLF soo dhigtay goor dhaweeyta ayay waxay ku cadeeyeen inaysan ka mid ahayn ururada ay dawladda Itoobiya sheegtay inay hubka dhigayaan. ONLF waxay mowqifkeeda ku cadeysay inaysan ka mid ahayn ururada ay hubkooda dhigaya maadaama aysan Itoobiya wax heshiis rasmi ah hadda aysan la gelin laakiin ay socdaan wada hadallo nabad lagu raadinayo. Tallaabada ay dhawaan ONLF ku qaadatay xabad joojinta ayay ku micnaysay inay uga jeeday si loo fududeeyo wada hadallada nabadeed ee socda. Sidaasi daraadeedna maadaama uusan jirin wax heshiis rasmi ah oo dawladda Itoobiya ay la gashay ONLF, waxa ay sheegeen inaysan ka mid ahayn ururada dhigaya hubkooda oo ay sidoodii u wadanayaan. Warkan oo goor dhaweeyta soo dhacay ayaa ah mid xasaasi ah oo lagaga jawaabayay hadal uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya maalinnimadii shalay, kaasi oo uu ku sheegay in ururo badan oo mucaaradihi ay hubkooda dhigi doonaan isla markaasina la samayn doono guddiyo qaabilsan dib u dejinta ciidamadaasi iyo maleeshiyaadka u dagaalamayay jabhadahaasi, kuwaas oo loo samayn doono shaqo abuur kuwii doonaya inay ku biiraan ciidamada Itoobiyana lagu dari doono.